waxa lagu xisaabtamaa markaasi in la yiraahdo dhibta kee u fudud مثال أنا دسيو قاعدة دي خضر يا موسى قصدي دحمرتي خضر سورة الكهف إلى القرآن كوحك جور رميا إن نبي موسى ويمي ويديستين وحبره أو قرادين وحبر الشضا والراعه سافر بادي لقى لي سابي لو حلوا كبريا لكن أنا جو حكوش رحمه يا ناس عايش هيقول بدينين وحبه ويديني بويري خضر ساسو موسى قاعد صدي موسى خضر في عاشي سوات كيس كرواي سؤال مركو وحسما يبقى سؤال بكدب ويديا ورسبينا كوب الله من بدور كركو يدينا عين كان يعذر دار مرصد حاد وحيد مردا بهدا وحكو ويديو وكلا تجينا مرصد حاد كي بوحويديي waxay noqotay in la kala tago dabeetana uu sharxay saddexdii qadiyadooda Muuse iyo soo kala maray Khadar mid kamid ah hadaynu tilmaamno doon bay fuuleen doonta noolilaan baa lagu soo qaaday dhaxda markii la marayay ayuu Khadar doontii loox ka saaray Muuse wuxuu yiri waxaan wax macquul ma hadee nimankeena soo qaaday doontoodii inaad adigii daloolisaa صوتين كوبا النبي يقول لنا دعم الصلاة ما وحبي ويدينين وعذر داث مركي دنبو خضر شرحي الرمي يردن وهو شرحه وحولي وما فعلتها عن أمري هرت وحا الله لي وحا أنا سميي وحا أنو إسكا أنو سميي مجرين وحا هايين شريعتي أن راعي سيدة تنقيسي محمود دون تودلولي wuxuu sheegay Muuse inuu ka dambeeyaa nin boqor ah oo doon kasto hagaagsan qaadaya marka Khadar wuxuu kala doortay doonta in ma dadka masaakiinta ee laga qaado iyo inuu doonta ceeb u yeelo boqorku yiraahdo tan mid fiican ma haynaga sii daayo ay qolada tan dib u noqoto labadaas uu kala doortay inaad xoolo bini aadam leeyahay ku tasarrufta marka hore waa mamnuuc ممنوع به هدي ما كان دون تود الله يلا وطنا إن لقى ساروا ممنوع لكن خضر وحجوجا حالة وأجية هي إن دت كان إن دون تودن لقى قاضه يدا الله حلاين الرعدة إنه خلا دورته وحود دورته مركزي هل كي دون تودن لقى قاضي لها إنه الله يدا لا والله كتره أساس يكون رعده أنا بدو حدا مسألة أنا وأخف الضررين و إلا ودبا جيري سي marka masaakiinta taa u dhibiyar ma hal loox baa u dhibiyar mise doonto dhan ay waayaan baa u dhibiyar wuxuu Khadar door biday marka inay hadda dhibiyar tahay in hal loox laga saaro marka waa khafu dararayn waa laba dhibood oo meesha taala saadaradeed ba Sheekh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi waxa uu tilmaama وهذا باب تعارض باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات ووقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين ولا يبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة على كل حال وهذا الدير وشيخ وانكسر نغلني وحولي هي مركة تعارض كله يعني أدلة مركة إسكاكا خلافته dhibta meesha jirta ay dhib badan timaado waa baab aad u ballaaran buu leeyahay siiba waqtiyada iyo meelaha ay yaraata buu leeyahay raadadkii nabinimada iyo khilaafadii nabinimadu ay ka tagtay markastoo yani dadku diintu ka sii fogaadaba ijtibaaha kan uu sii tirabata waayo markastoo dadku mustaqiim noqdo oo toosnaado dhibtiisu way yaraataa markastoo dadka mushkiladiisu badato xalkuna wuxuu noqdaa wax adagoo qarjajac badan ay ku dhex jirayso oo aan noqonay ninkii saafiga ahaa ee dhanka qura tooska u soconayay sida daraad ayuu wuxuu leeyahay Sheekh Ibn Taymiyyah markastoo naqsiga kani uu ku dhaco bulshadatan
su'aalahanina ama masaa'ilkanina way tiro bataan waana sababaha in badan keena buu leeyahay fitnada waayo dadka badh markay xasanada iyo sayi'adu isdhex galaan buu leeyahay dadka badh xasanadunbaa u muuqato ay rajaxaan dadka badhna sayi'adunbaa u muuqato ay rajaxaan dadka badhna qadiyadday isu miisaamaano way eegeegaan saasi daraaddeed waxaa timaada tabaayun ilaaraa aaraadu inay tiro badato marka aan leenahay ixtimaal akhafi dararayn waxaynu tilmaamaynaa marka shareeco la dabaqayo meel faadiya intaad timaado ku dabaqi mayso meel madhan heli maysid aan wax kale oolin adiga taadun ay ka socoto marka kitaabka la akhrinayo se meel faadiyaad helaysa adiga taadun ka socoto yani waxa kala nooca haddii kitaab aan masaajidka ka akhriyo waan sheekh noqdo kursiga fadhiya kursigii sheekhukhada anaa fadhiya nusuustun waa inaan isa saaraa itijaaha saxa ay leedahay tilmaamaa laakiin waaqaca haddii la ysidhaahdo ku dabaqa tuuro badan bay yeelanaysaa waxaana tuuraha u yeelaya bulshadan la rabo in lagu dabaqiyo intay diinta ka fogtay hadba inta waxa ay ka aaminsan tahay inta ay ku dhaqmayso inta gacan dabadeed ay ku jirto intay munaafiqiin leedahay intay dad saalixiin oo toosan leedahay inta ay dad samaha u gargaaro leedahay inta ay dad xumaa u gargaaro leedahay wax badan baa markaasi kaa hor imanaya oo aan ahayn nusuustii muran kama yaalo sidaa daraaddeed marka la tilmaamayo akhafu dararaynka markaynu sheegayno shareecadu wax darara ma wado waxay wado dhami waa samo laakiin bulshada baa mashaakilkani ka imanaya u baahan in la xallilaa in la kala horraysiiyo qawaacidda marka baabkan laga warramayo la tilmaamo waxaa ka mid a qaacidada yidhaahdaan muraacaati alma'aal waictibaari ma'aalaati alumuur waxa markaa kuu muuqdo inaad eegin ee aad eegto waxa kan natiijada ka dhalanaysaa muxuu noqonaya maxaa ka dambaynaya maxay soo baxaysaa oo waa maxay inta aanad ficil fulinin inaad in badan ka fakarto natiijada ka dhalan kartaa waxay tahay مثلا النبي صلوات الله وسلامه عليه عائشة وحكوا لي لولا أن قومك حديث عهد عائشة تلقى هدانا يهين كوا دين تكو عصب قريشي يعني هدانا يهين كوا دين تكو عصب وهدون دين تصوق علي كعبة وان دمين لها أبو النبي قولي ودول كان لصم لها كعبة دول كوي كعسنتين يعني ومال سرع أيها الباب كجيا يعني دول كان دور بك صوك عسنتين marka nabigu wuxuu leeyahay kacbada waan dumin lahaa dabeetana dhulkan ka dhisi lahaa dabeetana laba albaab baan u samayn lahaa in ay ka tagtay mushrikiintii carbeed markay dhisayeen yani kacbada waqtigii quraysheed oo nabiguna markaa dhowriya 20 jiriyaan wali rasuulba noqonin ayaa daad magaalada qaaday daadkii baa dhinac ka dumiyay quraysh markaa waxay aqbashay inay kacbada dumiyaan oo dib u dhisaan laakiin waxay ku heshiyeen xoolo xalaal ah inay ku dhisaan xoolo riba gashiya waxaasi xoolihii xalaasha iska heleen soo ururiyeen baa yaraaday intii ay kacbadu ka dhisnayd bay gaari weyday marka waxay dhaahdeen aan ka yarayna hadaba kacbadu waa qol yarday waa gurigaan intii ka yarayna bay dhaahdeen dhismaha nus bay ka tageen intan xijriga yar la yiraahdo dhinaca kaga wareegsan intan kacbada ka mid ahayd dabeetana intaasi ka soo guureen 6 foot 6 diraac bay dib u soo noqdeen oo ay ka jareen intii hadhay bay dhiseen kor bay u dhiseen waxay dhaahdeen meeshan saydu inagu control ninkii doonaaba aanu u gelin meel sarana aan ka dhigno albaab quranaanu yeelo furiisa haysano nabiguna markaa wuxuu leeyahay Aisha hadaan tolka imika soo islaamin kacbadaba intaan dumiyo ayaan sees cusub dhigi lahaa oo qawaacidii nabi Ibraahim uu dhigay inta ka dhigo ayaan laba albaabna u sameyn lahaa mid laga galo iyo mid laga baxo ayaanu sameyn lahaa buu leeyahay nabigu muu yeelin muxuu yeelay wuxuu leeyahay waxaan ka cabsanayaa dadkani inay thawraan sameeyaan yani in la dumiyo oo sidan loo dhisaa sidii sax ahayd laakiin haday khalkhal iyo rabshad keenaysa sideedan baa iska ahaatade maradaanay inteedan ba ay kacbadeedii ku ahaanayso sideedu nabigu u daayay salawaatullaahi wa salaamu alayhi idan ma'aalaat al-umuur qadiyadu waxay ku gabagaboobaysaa u baahan in badan la eego midalan munaafiqiin baa nabiga la noolay rabshad badan عبد الله بن أبي باجوغي منافقة وربشت بدن ومشاكل بدن وجيستي مسلمين تا حادثة الإفك نكي سمية بين أبورة كعاشة بين تكسمية إن غزوة بني المصطلق بركي جدا بيلا قصة نقضي نكي وحكو هاد لي سم من كلبك يأكلك إن نكي سكدري صحابة جوده هذا لأن هذه مشكلة بضبوها
شاكل كيسي مركي اللي جوه كرواية أبو عمر إلهي رسول كيسي وكان مدحك قوي يندلو ومنافق ولا ودا أجي هاي بشدة دبكوا هيا إلا الدلا والصورة قال لكن نبي هو ديد وحلور بلا هدلين نيجي نروح كم دي هاي أنصار جوده هذا ويسكد شيء وحي وايل كتلين شري أنصار ورد من حرب بعاث هي حرب اللبسوس بيكون مردين لبا قضي بقى كسو هذا وح قضي على بالله هذا لبا قضي مدواب عامر الفاسق وحنظلة أبيه ونكي عررية مالنتي وحد سوى ذي قال ذا لها أنا قاين تلقي راعي أنا دومر كانوا قاعن هذه كيك لنا وعبد الله بن أبي أبو عامر الفاسق وأبو عامر الراهب كان له رجل كريستيانة تبو قاطي مركي دمنا شام بو عرري كي لبعضنا نوا كان نينكا السلطان بو سجيه مركو النبي قميش يمي بقرطوي سجيه وحاول تولي تاج كي لا صار لها يدو تاج كي لو تولي النبي محمد مقالة يمي صلوات الله وسلامه عليه دتك الدولة الإسلامية قاعد بعد سنتي عبد الله بعيد الدبو ما يجين marka isagu wuxuu arkay dawladda islaamiga inay kursigiisa qaadatay oo uu waayay booskii madaxnimo saasi daraadeed buu mashaakilkan tirada badan la waday Umar ibn Khattab ay ilaahay rasuulkiisa iyo kanaan madaxa ka jaro wuxuu nabigu yiri dadku kuma sheekaysan doonaan Maxamed asxaabtiisa wallaaya wuxuu diiday in la dilo isagoo ilaalinaya sumcadan dawladda islaamiga iyo bulshadan islaamiga iyo inaan mujtamacaad kale ku warramin maxamed inta yar la socoto laaya ama dadka isaga la jooga buu laaya waxaan qadiyadka u tilmaamina waxa weeyaan maali umur buu eegay nabigu sallallahu alayhi wa sallam arintu waxay ku gabagaboobayso sida daraadeed bay nusuus xataa soo aroortay waqtiyada dagaalka lagu jiro xuduudda ma lagu oogaya ماشي قال كي مسلم اسكو هي يدا صورته قالت قفك دو ضعيف الايمان ينو بحسن كرو دبتنا حاجه كله وجود بكره قاعده كلي شيغان علماء تقديم الاهم والاولى السياسه الشرعيه وارمه سيده وكله واوين لو كله هريسيو oo waataynu soo tilmaamnay qadaayadku siday u kala muhiimsan yihiin sababooda may ku xidhnaan kartaa waxay ku xidhnaan kartaa waqtiga iyo ciriirigiisa waxay ku xidhnaan kartaa awoodda iyo sida dacajsi uu tahay ama aydan awood u haysanin waxay ku xidhnaan kartaa shayga iyo fadiiladiisa idan mar kastaba shaygan inuu ka fadli badan yahay ma keento in laga horumariyo ee marar bay keentaa masaa'il kale in laga horumariyo si kale haddaanu tilmaamo ظرفiga ama waqtiga la nool yahay wax badan buu xadeeyaa قضاياتكم مرنا نصوص قربي كوكلا أوليسيه وهو مركز شريعة سي عام الله إيغو توحيد كاوغو هرية كانوا الإسلام كاكوحيقا ساسي وكلا هريسة مدنوا أولويات النسبية يعني وحكا لمركا الله إيغا بيكلا هريسة وأما وقتك اللي تشوغو أما أود اللي ليه هي هي برشدو إيطالكا إليه هي يوحي للنوعة نصوص قرآن كي حديث كاهي إن لا طبقه وبالشدة لغو طبقه وحيوبا هانتي مركا أقون تربضا إيه أو تربضا لبضا أقون بيوبا هانتي ووحا طبقي كرارونتي العلماء الربانيون مركا سي نظري قايت هاي لغو شرحيه مساجد قديه أما درسكا لتشيدين يا هور فردان أي تاي طالب العلم كستو برتاي مركاسي وآخري كرا مسوى تشيدين كرا لكن مركا التطبيق يا مامل نغطه ما فضوضا